Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan asxaabta ku xiran kanaalka samooda ee YouTube soo dhawaada. Sheekadani aad iyo aad ayay u xigmad badan tahay, waxayna ku bilaabanaysaa sida tan. Wiil ayaa aabihii wuxuu ku yidhi, aabe waxaan soo arkooday gabadh aad iyo aad u qurux badan, joog iyo jamaalna waa loo dhammaystiray. Aabe waxaan doonayaa inaad ii doontid oo aan guursado. Odaygii ayaa ku yidhi wiilkiisa, aabe waan kuu doonayaa, balse marka hore waa inaad i tustaa gabadha. Odaygii markii la tusay gabadha ayuu wiilkiisii wuxuu ku yidhi, aabe gabadhan adiga uma qalantid, waxay u baahan tahay qof waaye arag ah sida aniga oo kale. Wiilka waa uu ka yaabay damaca aabihii, balse odayga ayaa marba marka ka dambeysa kusii adkeysanaya in uu guursado gabadha. Muran badan kadib waxay ku heshiiyeen inay aadaan saldhigga. Kadib markay aadeen arrinkii ay isku haysteenna waxay usoo bandhigeen taliyaha saldhigga. Taliyaha saldhiggana wuxuu ku yidhi, bal ugu horreyntii i tusa gabadha. Markii la tusayna gabadha wuxuu yidhi, labadiinaba uma qalantaan, gabadhan waxaa u qalma qof sharaf iyo awood leh sidayda oo kale. Saddexdoodii ayaana wada murmay badan kadibna waxay go'aansadeen inay u gardhigtaan magaalada, waxayna u sheegeen arrinkii ay isku haysteen. Wuxuu yidhi, hala i tuso gabadha. Markii la tusayna wuxuu ku dhahay, saddexdiinaba gabadhan uma qalantaan, gabadhan waxaa u qalma oo guursan kara qof mas'uul ah sidayda oo kale. Buuq iyo dagaal badan kadib arrinkoodii wuxuu gaaray boqorka. Boqorka ayaa afartoodii ugu yeeray. Boqorkana wuxuu doonayay inuu dhexdhexaadiyo afartood, wuxuuna ku dhahay hala i tuso gabadha. Waana la tusay gabadha. Markuu arkay gabadh wuxuu ku dhahay, sideed ku damacdeen gabadhan kaliya waxaa damci kara qof boqora sidayda oo kale. Afartii nin iyo boqorka ayaa mar kale waxay ku doodeen qofkii guursan lahaa gabadha, balse gabadhii ayaa ku dhahday, aniga ayaa idinkala saaraya, waan ordayaa, shantiina qofkii ugu horeeya ee isoo qabta ayaa i guursan doono. Sidaa ayaa lagu heshiiyey. Gabadhii ayaa carartay, shantii ninna way eryeen. Inta aysan gaadhin gabadha ayaa shantii nin waxay ku dhaceen god weyn. Gabadhii ayaa soo laabatay, waxayna soo dul istaagtay godkii ay ku jireen shanta nin, waxayna ku tiri, ma taqaanaan qofka aan ahay? Waxaan ahay Aduunyo. Dadka oo dhammi way iga daba cararaan, waxayna doonayaan inay i helaan, wayna isku dilayaan. Mid waliba oo ka mid ahna wuxuu doonayaa sida uu aniga ii hanan lahaa, balse waxay iloobeen inaan ahay mid waqtigeedu uu gaaban yahay, isla markaana uusan jirin qof soo daba cararay oo guul iga gaadhay. Qof waliba oo ii soo hamiya wuxuu ku dhacayaa godkan asiga oon i helin. Waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iiday muuqaalkan. Haddii uu ku anfacay, like saar, lana wadaag asxaabtaada, fikirkaagana noogu reeb qaybta kommentiga.